السلام عليكم أصحابتا قاليغا. يوتيوب كان waa mid cusub ku soo caawiya subscribe-ta iyo like-ta si uu u sii hormaro. Haddaba hangalno mowduuceena maanta oo ku saabsan ciyaarta kubadda cagta. Haddaan wax yar isku dayno in aan sheegno waxa ay tahay kubadda cagtu. Ma ogtahay in kubadda cagtu aysan ahayn xoog keliya, balse ay tahay maskax, qorshe iyo fahan ciyaareed. Hadda aan ku soo bandhigo saddexda ciyaarto ee ugu khibradda badan kubadda cagta. Ciyaartoyga koowaad waa Iniesta, waa ciyaartoy u dhashay waddanka Spain, waana sayidka tiki-takada. ciyaartoyga waxa uu fahmay boostiisa, ana ciyaartoy aad u baas badan, aadna u caqli badan. Waa maskaxdii kubadda cagta ee waqtigii la soo dhaafay. Iniesta waa isku darka caqli, nidaam iyo ciyaar qurux badan. ciyaartoyga labaad waa Bellingham, ciyaartoy u dhashay waddanka Inglaterra, waa astaan, nidaam, qorshe iyo caqli ciyaareed. Kooxdiisu waa sida mashiin, mid walba wuxuu og yahay meeshii uu istaagi lahaa. Marka ay ciyaarayaan, waxay u ciyaaraan sidii hal maskax oo keliya. ciyaartoyga saddexaad waa Pele, waa ciyaartoy u dhashay waddanka Brazil, waa ciyaartoy ku caan ah hal abuurka iyo farsamada. wuxuu fudud u fahmaa ciyaarta, wuxuuna ku ciyaaraa maskax iyo caqli. ciyaartoyga waa maskax ciyaareed aan caadi ahayn. daawada adiga ciyaartoygee baad u malaynaysaa in uu yahay kan ugu maskaxda badan ciyaarta kubadda cagta? aragtidaada kommentiga hoose ku soo qor. fadlan ha ilaawin in aad fiidiyoga like iyo subscribe dhahdo si aad u hesho fiidiyoyada kale ee ku saabsan kubadda cagta. u sheer garee asxaabtaada kubadda cagta jecel. mahadsanidin.